kulanti wacan saaxiibada janalkan ku xiran kusoo dhawaada mar kale iyo wararka ugu waaweyn suuqa kala iibsiga maanta waa Arbaco 16 bisha Janaayo. Warbixinada ugu waaweyn suuqa hadaynu ku bilownay wargeysyada caalamka maanta ay qorayaan Arsenal waxay doonaysaa soo qaadashada James Rodriguez kaasi oo Bayern Munich ama ku jooga milkiidiisana ay leedahay kooxda Real Madrid. Arsenal waxay doonaysaa in Colombiankani ay ku soo qaataan 3 milyan ay bixiyaan waxayna doonayaan 6 bilood oo amaah in lagu siiyo isla markaana kadib toos ay u iibsadaan sida meel maanta ay qorayso. Chelsea waxay diyaar u tahay Morata in markan ay iska iibiyaan. Waryahanka kooxda Chelsea Alvaro Morata ayaa doonaya kaliya in uu amaah ugu biiro kooxda Atletico Madrid maadaama kooxda Red Spin aysan doonayn in ay wada iibsadaan xidigan halka Chelsea ay doonayso in gabi ahaanba laga iibsado Alvaro Morata. Meel warbixinada qortay suuqa ay maanta kamid yihiin isla warbixinada meel hadaynu ku jirana Arsenal ayaa la warinayaa in ay doonayso in amaah ay ku fasaxdo bishan gudihiisa Mesut Ozil. Arsenal waxaa la sheegay in diyaar u tahay in Mesut Ozil ay amaah ku siiyaan kooxda Talyaaniga Inter Milan ee Nerazzurri lagu naanayso. Gunners waxay doonaysaa in bishaaniba ninkan laga qaato. Warbixinada ayaa sheegaya sidoo kaleeto in ninkan mushaarka 350 toddobaadkii uu qaato Arsenal ay diyaar u tahay in Inter Milan ay qayb ka bixiso si mar uu ninkan uu kaga baxo kooxda Arsenal maadaama uu Emery ay isfahmi leeyihiin isla markaana kursiga kaydka aan lagu sii hayn karin maadaama uu yahay ciyaaryahan weyn. Arsenal waxaa la warinayaa sidoo kale in booska Ozil ay soo qaadan doonto Yannick Carrasco kooxda kubadda cagta The Gunners waxay doonaysaa in ay la soo saxiixdaan wiilka reer Belgium ee Yannick Carrasco 25 sano jira balse Arsenal ma qaadan karaan xidigan ilaa iyo Ozil ay ka diraan kooxdooda maadaama aysan awoodin in ay qarashaadka ay ku dalbanayso kooxda Dalian Yivangi aysan bixin karin. Fox Sports Asia ayaa warbixintan maanta qortay. qadka dhexe kooxda Spurs Christian Eriksen waxa uu diiday in heshiis cusub uu ku dhigo kooxda Tottenham Spurs waxaana doonayay inuu ku biiro markan kooxda Real Madrid ayaa Christian Eriksen doonaysa in ay qaadato kaliya ciidankani qandaraaskiisa uu ku joogo Spurs waxa ka harsan 18 bilood oo qor waxayna u badan tahay kubad sameeya Danishka inuu ku biiro Santiago Bernabeu ayaa maanta qortay. warbixinadaas ee suuqa kala iibsiga hadaynu ku sii socono Kiko Casilla ayaa la soo warinayaa in uu u duulay dhanka iyo waliba horyaalka England si uu halkaasi koox kamid ugu biiro. Goolaha kooxda Real Madrid ee Kiko Casilla oo 32 sano jira ayaa la sheegay in tababarka kooxda Madrid shalayto talaata uu seegay isla markaana uu u duulay England si uu ugu biiro kooxda heerka labaad ee Leeds United liiradaas ayaa maanta qoraysa. warbixinada kale ee suuqa kala iibsiga maanta hadii aynu eegnana Gennaro Gattuso tababaraha AC Milan waxa uu sheegay in Gonzalo Higuain uusan u sheegin in uu doonayo inuu baxo. macalinka hogaamiye kooxda AC Milan ee Gennaro Gattuso ayaa sheegay in uusan marnaba u imaanin Gonzalo Higuain uusan kala hadlin waxyaabo ku aadan mustaqbalkiisa. waxa uu yiri imaan Higuain mana uusan ii sheegin inuu doonayo inuu baxo. Ivan Standard ayaa maanta qorayso ciidankan ayaa la warinayay in Chelsea heshiis uu sii gaaray. Chelsea waxay isbuuca soo aadanba ay dhameystiri doontaa saxiixa Gonzalo Higuain oo Argentina u dhashay AC Milan weerarka ka ciyaara. Chelsea waxa ay rajeynaysaa in isbuuca soo aadan soo gabagabiyaan soo qaadashada waryahanka reer Argentina ee Gonzalo Higuain oo qaab amaah ku jooga kooxda AC Milan ee San Siro ku ciyaarta. Telegraph ayaa maanta qoraysa. Manchester United waxay iska iibinaysaa Marwan Fellaini kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa doonaysa in wiilka reer Belgium ee qadka dhexe kaga ciyaara Marwan Fellaini la yiraahdo ay iska iibiyaan waxaana wada doonaya ciidanka AC Milan iyo kooxda Porto Portugiiska. sidoo kale kooxda ka dhisan China ayaa doonaysa in la yiraahdo Guangzhou Evergrande 30 sano jirkaani waxaa lagu heli karaa adduun lacageed gaar ah 15 milyan bishan ayuuna bixi karaa. Mirror ayaa qoraysa maanta. wararka suuqa ugu waaweyn maanta intaas hadaynu kaga talaabno warbixinada ugu waaweyn ee sportiga maanta hadii aan idin la wadaagnana AC Milan iyo Juventus ayaa caawada ciyaari doona finaalka Super Cup-ka ee Talyaaniga iyadoona labada kooxood ay ku jiraan diyaar garowga ugu dambeeya kulankan. AC Milan iyo kooxda Juventus ayaa ku wada ballansan finaalka tartankan kuwaas oo mid walba ay doonayso inay ku guuleysato. haddaba hadaynu eegno ciyaartoyda u diyaarsan labada dhinac liiska kooxda AC Milan hadaynu ku hormarno Antonio Donnarumma, Gianluca Donnarumma walaalaha ayaa dhanka goolayaasha ku jira Iriana Abatic, ninka la yiraahdo Calabria, Conte, Laxlad, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zimic, ciidanka la yiraahdo Skriniar, Zapata, Bakayoko, Bertolacci, Casey, Mori, Montalivo, Paqueta, Burini, Calhanoglu, Castilejo, Catron iyo Gonzalo Higuain oo kulankii ugu dambeeyay inuu ciyaaro la rajeynayo maadaama Chelsea uu ka jahaayay. liiskaas ayaa u diyaarsan Gennaro Gattuso kooxda uu hogaamiyo. liiska Juventus hadii ay Joao Cesny, Brian Benzaglio, ciidanka la yiraahdo Del Valverde, Zaglio, Giuliani, Alexandro Brogi, Joe Cancelo, Rugani,
Spinazzola, Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can, Bentancur, Cristiano, Dybala, Douglas Costa, Kean iyo Bernardeschi ayaa u diyaarsan. ciyaartan waxay caawa soo dhici doontaa 8:30 daqiiqo ama 2 saac iyo bar xilliga geeska Afrika qof walba sida uu yaqaan waan ciyaar si gaar ah loo sugayo Cristiano Ronaldo oo weerarka ka ciyaara kooxdan isla markaana caan ku ah kulamada finalka ayaa caawa kulankaani ka soo muuqan doona waxa uu doonayaa inuu koobkiisa ugu horeeyay kooxda AC Milan uu ka hantiyo isla markaana uu u gacan geliyo kooxda Juventus haddii uu ku guuleystana waxay noqon doontaa qayb kale oo CV-ga Cristiano sii qurxin doonta. wararka ugu weyn maanta suuqa kaliibsiga iyo falaqeynta kulanka AC Milan iyo kooxda Juventus ayaan maanta ku eegaynay warbixinada ugu waaweyn ee ciyaaraha ay waqtigaani taagan saaxiibadina kale inaad gaarsiisanayaan rajaynaa sidoo kale janaalkan subscribe aad saari doontaan oo maasantiin